السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وأدين سلامي إلهي وحاين كجرجيني عمري دير عبادة لما يسترني عافماد لن ملك استود جوجتان كسو دواده channelkiis anfac adinku aad u mahadsan maanta waxaan jeclaystay insha Allah inaan idin wadaago ilaa 10 shakhsiyaadka qalqalka galiyo 10 kaas oo kala baxaan ilaa 3 qodob aan rabay inaan idin la wadaago insha Allah oo idin sharaxo marka kusoo dhawaada fadlan hadaan ugu cusub tahay like iyo subscribe iyo fakarkaagana hoos ku diibatid ayaan ka rajeynayaa insha Allah mahadsanid. marka 10ka qodob ee ku kala jiro saddexda koox. marka kooxda koowaad waa koox sideedaba qalqal badan oo dabeecadooda aysan deganeyn, dabeecadooda marnaba caadi ma ahan, qalqal ah ku jiro. dabeecadooda waxa ka koow ah marka waa dad shaki badan oo cidna aaminaynin, qof kasta way ka shakisan yihiin, qof kasta iska badaaya naftooda ayay marka qaar shaki xoog la ka qabaan. waxay meesha dhigeen ma is aaminsano, waxay iyaga haystaan ma is aaminsano, shaki iyo argagax ayaa markasta ku jiro. marka kooxdaas koowaad waxay dhahan kooxda A oo kale, cluster A waxa waa kooxda koowaad oo kale Soomaali marka oo kooxda A oo xarafka A da Soomaaliga oo kale. marka kooxdaas waa koox qalqal badan oo qalqal aad u deganeen oon caadi ahayn, qofkan caadi ma ahan marka lagu dhaho camal. waa fahantaa umaleynaa marka qodobka labaad ee kooxda koowaad ku jiro waxa la dhahaa schizoid. waxa way qofkaas wuxuu leeyahay qof aan jacayl dareemin weeye, waa qof ma aragtay lahayn dareen oo emotion ahaan camal, ama wax oo ama ka xanaaqo ama wax ma aragtay maxaa la dhahay dareenka wuxuu kala baxaa xanaaq, farxad, oohin, naxdin iyo waxyaabo kale oo badan. emotionkaas dhan ma lahan, dareenkaas oo dhan ma lahan. mid kale adduunka oo runta iyo ma aragtay dhabta ah adduunkaas ma la socdaanbo, meel kale ayay ka u saaran tahay, ma lahan wax kale oo dareen guud ah. jacaylna qofna uma qabaan, naftooduna uma qabaan, waa iska caadi, way iska socdaan. marka taas waxa waaye qaybtii labaad ee kooxda koowaad. waa fahantaa umaleynaa. marka hadda waxa u gudbaynaa qaybtii saddexaad ee kooxda koowaad ayaan wali ku jirnaa. marka insha Allah 10kii saas ayaan idinkugu sii wadayaa. waxaan bilaabayaa koox marka qaybta saddexaad ee qalqalka shakhsiyaadka waxa weeye qofkan dadkan ama kooxdan waxa waaye waxay ku nool yihiin nolol qayaali ah, meel kale ay u saaran tahayba. waxay aaminsan yihiin wax dadka aaminsaneen, waxay arkaan dadka kale waxay arki karin. mar walba dadkaas waxay keenaan markay si fiican ay u hagaagto wax aan dunida wali lagu arkin oo lala yaabo kaleeto badanaa. laakiin intaas ka hor dadka ma aaminaan because ayaka oo dhanba waxay u saaran tahay channel kaleeto. waxa la qofkan wuxuu ka hadlaayay iyo soo u fakaraay iyo maba la socday camal no, because ayaka dhan meel kale u saaran tahay. sidaas darteed waxa ay ku fakaraan fantasy iyo nolol qayaali ah iyo waxyaabaha qaar ee waxaan rumaba noqon karaan ay mar walba ka fakaraan ay ku dhex jiraan. marka wali waxaan kusii guda jirnaa qalqalka shakhsiyaadka kooxdii labaad ee kooxda B-da ama ba'da loo yaqaano. kooxdan marka waxa la dhahaa kooxdan waa koox oo ma aragtay riwaayad camal inay ku jiraan, nolol ma aragtay sheeko camal ah. waa dad ma aragtay oo dramatic waxa waaye qof ma aragtay wax kasta oo yar ka dhiga wax weyn, oo markasta u maleys filina noo dhigay camal. marka lagu dhahayo qofka ma arkino waxa oo dhab ahayn laakiin si jiidaayo, wax ku dardarayo, kasii dardarayo. had waxaas wax kasta noqon karaan. haday farxad yihiin way ku dardarayaan, haday naxdin tahay naxdinta iyadoo jirto way ku sii dardarayaan, haday jiro jirto way ku sii dardarayaan. riwaayad camal lagaaga dhigaa, ma fahantay? kooxdaasna way jiraan. dadka kooxaha 10ka qodob ee saddexda koox u kala baxo ayay ka mid tahay. marka hadda waxa ku guda jirnaa kooxdii labaad koodeedii waa kooxdaas oo saas u dhaqanto oo dadka kooxdan labaad maxay ahayd 10ka qodob aan rabay inaan ka hadlo shakhsiyaadka qalqalka galiyo. badanaa kooxdan dadka kale xuquuqdooda iyo xaqooda iyo bini'aadanimadooda ayay mar walba xaqirsan yihiin, marna kuma qancaan, marna ma ogolaadaan qofka kale rabitaankiisa, maxay baahidiisa, dhibaatadiisa, dheeftiisa, farxadiisa, jacaylkiisa maba ogolaba, marna uma ogolaanayaan. mar walbo ayaka un baa cad, ma fahmaysaa? marka
xaqiraad weyn oo ma aragtay qofkii aad arkaysid wixii oo cadaani madow ah ayay inkiraad dhac ku siinayaan, way is indha tirayaan, ma u ogolaanayaan bini'aadanimo, ma u ogolaanayaan nolol, ma u ogolaanayaan wax kaleeto. xaqiraad oo qofkan bini'aadanimada ah iyo ma aragtay xuquuqda oo waxa xaq ilaahay u siiyay ayay ka afgambinayaan. kooxdan waxaas ayaa lagu arkay markii la baaray cilmi baaris oo psychological ahaan ah. marka wali waxa kusii goda jirnaa shakhsiyaadka iyo ma aragtay waxyaabaha qalqalka lagu arkay ee dabeecadahooda oo kaleeto. marka kooxdii labaad midkii saddexaad ayaa maraynaa ilaa 10 ay ahayd. marka kooxdan oo ah koox oo ma aragtay narcissist waay. marka qofka saddexaad narcissistka waxa waaye dadkaas waxay isku ogol yihiin ayaga un inay muhiim yihiin, waxay aaminsan yihiin ilaahay inuu ka dhigay dadka u muhiimsan, waxay aaminsan yihiin ayaga la'aantood dunidaba inay shaqaynaynin, waxay aaminsan yihiin cirka iyo dhulka inay adi ama kuu kala hayaan ama dadka iyo dunida dhan u kala hayaan, waxay aaminsan yihiin haddaad sacabka u garaaci waysid inaad adiga dambiilo tahay, waxay aaminsan yihiin ma aragtay inay ku xukumaan, inay ku xakameeyaan, waxay aaminsan yihiin ay ka faraxsanaadaan adi xanaaqsanaatid, waxay aaminsan yihiin ayaga inay guuleystaan in adi guul dareysatid, waxay aaminsan yihiin xidigii iyo marka wali waxa kusii goda jirnaa shakhsiyaadka iyo ma aragtay waxyaabaha qalqalka lagu arkay ee dabeecadahooda oo kaleeto. marka kooxdii labaad midkii saddexaad ayaa maraynaa ilaa 10 ay ahayd. marka kooxdan oo ah koox oo ma aragtay narcissist waay. marka qofka saddexaad narcissistka waxa waaye dadkaas waxay isku ogol yihiin ayaga un inay muhiim yihiin, waxay aaminsan yihiin ilaahay inuu ka dhigay dadka u muhiimsan, waxay aaminsan yihiin ayaga la'aantood dunidaba inay shaqaynaynin, waxay aaminsan yihiin cirka iyo dhulka inay adi ama kuu kala hayaan ama dadka iyo dunida dhan u kala hayaan, waxay aaminsan yihiin haddaad sacabka u garaaci waysid inaad adiga dambiilo tahay, waxay aaminsan yihiin ma aragtay inay ku xukumaan, inay ku xakameeyaan, waxay aaminsan yihiin ay ka faraxsanaadaan adi xanaaqsanaatid, waxay aaminsan yihiin ayaga inay guuleystaan in adi guul dareysatid, waxay aaminsan yihiin xidigii iyo dadka narcissistka ah adiga dareenkaaga iyo rabitaankaaga ma tixgelinayaan. adiga xagooda qashin ayaad ka tahay, adiga xagooda shaqaale ayaa ka tahay, adiga xagooda adoon ayaad ka tahay, adiga xagooda waxaan la arkin ayaad ka tahay, adiga ayaga xagooda mugdi ayaad ka tahay, adiga ayaga xagooda waxay kaa filanayaan inaa inta hadda kusoo sheegay aad u gambisid camal, inaa adiga ayaga ka dhigtid iftiin, inay ayaga boqor ama boqorad noqdaan, inay ayaga ma fahmaysa dadka narcissistka ah saas ayaa lagu gartaa. ma aragtay dadkaas badanaa lalama noolaan karo, ma aragtay ama aad iyo aad u dhib badan tahay in lala noolaado, badanaa caqabado iyo dhibaatooyin badanaa lala kulmaa. ilaahay hana wada fududeeyo haddii aad dad saas camal asxaab ama ehel tihiin ama aad la shaqaysid, balse wax waad ka qaban kartaa. ilaahayna duceyso, ilaahna kula garab galo. qaybta kale ayaa u gudbaa inta hadalkan ku badanin insha Allah. wali waxaan kusii guda jirnaa qaybtii labaad ma aragtay shakhsiyaadka qalqalka iyo dabeecadahooda geliyo markii siday u dhaqmaan bini'aadanka ula dhaqmaan iyo sida maaragtay u kala baxaan. marka numberkii afraad kooxdii labaad ayaa maroona. kooxda marka waxay jecel yihiin inay taariikh sameeyaan, inay wax ka tagaan adduunka, inay xaflad markii la joogo noqdaan qofka kaliya oo maanta dhan ciyaaraya ama heesayo ama hadlayo. haddii ay ka noqon waayaan in loo sacbiyo in maanta dhan la dhaho waa khatar, waa dhig, waa cirka ka soo dhacday, xidiga tahay adiga la'aanta, dadka saasay jeceliyaan maanta dhan la amaano. marka haddii aad amaantaas daqiiqad yar joojisid maxaa ku dhacaya dadkan waxaa ku dhaco depression aad iyo aad u weyn, waali ayay ku sugnaadaan, dhimasho iyo jirooyin badan kale, jirooyin aad u daran oo dhimasho oo ku dhaweeyo ama dhimasho geeyo ayaa ku dhaco. marka dadka wali waxaa kusii guda jirnaa qalqalka shakhsiyaadka kooxda bida ama labaad. marka waxaa ku jirnaa numberkii numberka shanaad oo ah dadkan inay mar walbo dareenkooda isbabedelo. markaan dadkaasna ka wada af Soomaaliga mar jajab luuqo iga gala. dadkan marka waxay leeyihiin dad aan balan lahayn, waa dad isbabedel badan,
way isbedelayaan. hadda waxa ku balantaan uguma imaanaysa hadhow kaleeto. dadkan ma jeclo in ma aragtay dabeecadooda sida ma ahan camal. waxaad leedahay qofkan ma miiran yahay mas anaa wax siiga yihiin sababta hadda ama shalay saas iga balan qaaday muxuu isku bedelay. marka dadkan dabeecadooda ayaa saas ka ah because shakhsiyaad qalqal ayaa ku jiro shakhsinimadooda. balan ma lahan maxay tahay dabeecadooda mar walba isbedelaysaa. hadda way faraxsan yihiin, hadda way marka shakhsiyaadkan qalqalka ee shakhsiyadooda qabta waxaa weeye ma isku haleyn karaysid. balanna ma lahan, mar walbana way isbedelayaan. hadeertan qofka aad faraxsaneedeen oo hadda kugu xanaaqa arkaysaa, qofka hadda balan kugu qaaday oo balanta kaaga baxa arkaysaa, qofka hadda wada sheekaysanaysa oo kula dagaala arkaysaa. waxaad leedahay qofka ma miiran yahay mas anaa waalan. marka dabeecadaas ayaa lagu arkay qalqalka dabeecadahooda ku jirto shakhsiyaadka. marka insha Allah hadda waxa u gudbeynaa hal mid ka hara umaleynaa kooxdan kabacdi waxa u gudbeynaa kooxdii saddexaad oo ahayd tii u dambeysay. waa inoo sii socosho wanaagsan. marka shakhsiyaadkan qalqalka ee shakhsiyadooda qabta waxaa weeye ma isku haleyn karaysid. balanna ma lahan, mar walbana way isbedelayaan. hadeertan qofka aad faraxsaneedeen oo hadda kugu xanaaqa arkaysaa, qofka hadda balan kugu qaaday oo balanta kaaga baxa arkaysaa, qofka hadda wada sheekaysanaysa oo kula dagaala arkaysaa. waxaad leedahay qofka ma miiran yahay mas anaa waalan. marka dabeecadaas ayaa lagu arkay qalqalka dabeecadahooda ku jirto shakhsiyaadka. marka insha Allah hadda waxa u gudbeynaa hal mid ka hara umaleynaa kooxdan kabacdi waxa u gudbeynaa kooxdii saddexaad oo ahayd tii u dambeysay. waa inoo sii socosho wanaagsan. marka waxaan kusii guda jirnaa kooxdii labaad ee qalqalka ama dabeecadaha shakhsiyadda. marka kooxdan waxaa ku jirnaa qodobkii lixaad. marka qodobka lixaad kooxdan waxaa lagu arkay inay yihiin borderline camal xuduud kasta ayay taagan yihiin. marna halkaasay jiraan, marna halkaasay jiraan. macnaheedu waxaa waaye lugba meelay u taalaa. maantana waa sidaas, maantana waa sidaas, marna sidaan, marna sidaas. ma ahayna wuxuu dhahay sharma boy heestiisa marna saan, marna saas camal waayo no. marka insha Allah kooxdii saddexaad ayaa u gudbeynaa oo waxaa ku jiro 4 qodob. waan sii wadi doonaa haddii eebaha awooda leh noo ogolaado. waxaan kusii guda jirnaa qeybtii saddexaad ee qalqalka shakhsiyaadka ama dabeecadaha lagu arkay. qeybtan marka waxaa lagu arkay dadkan inay haystaan walaac sare, walaac badan oo joogto ah, walaac aad u badan oo joogto ah. walaac marka macnihiisa kulli waa taqaaneen. wax walba qofka markuu ka walwalo, wax walba markuu ka cabsado, wax walba markuu ka fakaro, wax walba markay joogto yihiin, wax walba markay aad u sareeyaan. qofka muruga ciid markuu ku nool yahay, markuu weheshado ma aragtay cabsi, markuu ma aragtay dareemo cabsi, markuu walaalsado cabsi, markuu argagax ku jiro ma aragtay waa wixii ma aragtay ku quraacdaan, ku qadeeyaan, ku casheeyaan, ku seexdaan, ku soo kacaan, fikradii aragti kala lahayn, nolol iyo naf kala lahayn, oo ma aragtay walwal iyo walaacooda aad iyo aad ayuu u sareeyaa kooxdan. marka kooxdan musni gaalay marka kooxdii saddexaad ee 10kii shakhsiyaadka walwalkooda iyo walaacooda iyo dabeecadooda aan ka hadlaynay. marka kan ugu horeeya marka waxaa weeye waxay isku dayaan inay wax walba inkiraan ama iska indhatiraan. mar walba waxaas waxay rabaan inay iska inkiraan ama indhatiraan. waxaas oo dhan u sameynayaan qodobka labaad oo ah inay ka cabsi qabaan in diidmo wax la diido. diidmo darteed waxay isleeyihiin waxaan iska indhatir, iska ma aragtay dhagatir, ma arkin ma maqlin dheh. sababtoo ah waxay ka baqayaan in la soo diido, waxay ka baqayaan in la ogolaan waayo, waxay ka baqayaan in ma aragtay la tixgelin waayo, waxay ka baqayaan ma aragtay in la cabsi ay ka qabaan sida ay ka rabaan inay u noqon weyso. sidaas darteed way indhatirayaan dhagahana. hadda waxaan maraynaa qodobkii saddexaad ee kooxda saddexaad ee siida ama caqda Soomaaliga sida loo yaqaan ku jirto aan ka hadlaayay qalqalka shakhsiyaadka ama shakhsiyaadka waxa qalqal galiyo dabeecadahooda. qaybta saddexaad waxa OCD marka aan video kala insha Allah si fiican idinku faahfaahin doona. tobigada iyo qoran ayuu kamid yahay.
marka OCD waxa waaye qofka markuu asaga rabo ama ayada rabto waxa sida ay ka rabaan inay u qoran yihiin, inay u dhigan yihiin, inay u samaysan yihiin. Camal tusaale ahaan barkinta inay saas u taalo waa haday saan u oolin ma aragta ay si kale dareemayaan maxay perfectionist wax walba waa inay perfect noqdaan, perfect oo ayaka sida u arkaan waa inay noqdaan. hadii kaleeto xanuuna ku dhacayo, walwal iyo walaaca ku dhacayo, jira ku dhacaysa, cabsiya ku dhacaysa, qalqal joogto ah ayaa ku dhacayo hadii isaas perfect wax noqon weyn iska daaynayo. marka hadda waxa maroonaa qodobkii u dambeeyay oo ahaa qodobkii afraad qodobkii u dambeeyay oo ahaa qodobkii afraad. qodobkan marka waxa weeye dadkan waxa weeye qodobkii afraad waaye kooxdii saddexaad ee 10kii qalqalka shakhsiyaadka dabeecadooda gelinaysa. marka kooxdan waxa weeye koox oo dad ah oo nin iyo naag leh, wiil iyo gabar leh, muslim iyo gaal leh, madow iyo cadaan leh, qof kasto bini aadanka oo dhan. marka waxa lagu soo ogaado waxaan hadda idin sheego oo dhan saakal cilmiga maskaxiyan ama cilmiga nafsiga ah ayaa ma aragta dhowr iyo 10 sano ma aragta wax sanado badan ala soo baaray oo la soo ogaaday in ma aragtay waxyaabahan marka kooxdan waxay leeyihiin waxa waaye waa koox mar walba ku xiran qof, inay mar walba qof ku xiran yihiin, waa inay mar walba dad ku xiran yihiin, waa ayaka sida iska dhaadhiciyeen. waxa laga yaabaa shakhsiyaadkan ama kooxdan inay khibrad iyo aqoon iyo wax walba haystaan balse ma is aaminsano. waxay iska dhaadhiciyeen qof kale oo garab taagnayn la'aantiis inay dhaqaaqi karin, inay noolaan karin, inay waxba qaadi karin. mar walba waa inuu qof ama koox kale ee ayaka noloshooda ku tiigsan tahay ama ku liicdo oo kaleeto. hadii kaleeto ma waxay aaminsan inay dhimanayaan ee noolaan karin. baahidoodana kooxdan marka way badan tahay. marka baby yar oo xal dhashay camal waay ma fahmaysaa, baahidoodu way badan tahay, rabitaankoodu badan yahay. ma aragtay waa qof ma aragtay maanta oo dhan adigii cunug yar oo ku sugaayo oo kaleeto oo kaligiis badbaadin karin. marka kooxdan dad saas kulay waa aragtaa laga yaabaa oo marka fadlan hoos igula wadaag hadii aad la kulantay hadii adiga xataa isku aragtay hoos wixii. marka walaalayaal inta maanta idin soo diyaariyay waa intaas wayno video dambe xiiso leh hadii eebaha wada la idmo insha Allah. hadii aad nagu cusub tahay soo dhawow, hadaad hore noola joogto waad mahadsan tahay kusoo biir asxaabteyda insha Allah. wayno video dambe oo xiiso leh hadii Ilaahayga awooda la idmo. waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.